بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مسؤولين تا قومة حزبك وورين فائدوين كدرتوا إلى هاي محمد يندكينه إنه ينقرنين إلى معها وواحد ودعونا هاي لكن كقد قال شذا حولهم دولته أي هرمات كت هاي وهو شعب وهو سيا marka iyadoo aan daliilaha si guud uga jira dhinaca barnaamijkan cagaarinta ee deegaankeena oo qaarkood ay yihiin qaar la xiriira dabagalka wixii la beeray ay koob ka tahay iyo isxilqaan haddana xagga shacabka haddii barnaamij ballaaran aan la sameyn oo barnaamij shacabku qayb ka yahay una noqonin mid dharkiisu ma fiicnaanayo sidaa daraadeed waxaa shacabka codsanaya gaar ahaan magaalooyinka shacabka ku nool waayo inagu dhulkeenu بيران باكيت تقول حاجة بيها ومنع بدن كيسو سيدا إثيوبيا كوريا بورها يمال والبي يدرس لو حين مثلا كرنا لكن مجالوين كأي مدجنا هاي حرمها الدجموين ك عاصمتها كوالله مجالوين كالحوجة صارنا وحوي بكبة دليسة ميجا يسقى إنتي شرتي إلى العالية إن حوجة لا صاروا الحليس وكلا لا تجالهم ما دام وحي ترى ملها قارب ودسي شريو in dhirtii miyigana la ilaaliyo oo maamulo iska xisaaran qolaysiga iyo wixii maaragtay nabad guur keenaya in laga ilaaliyo magaalooyinkana aynu maadaama biyo aynu haysano meelihii biyahan ku lahaynaan beerno ayaan inagu barnaamijka kaga qayb qaadan karnaa sanadahan wixii la qabtay runtii way muuqdaan magaalada jiga laga bilaabo haddaan sii xoojinana waxyaalaha faa'iidooyinka laga hadlay roobkaa fiicnaanaya meelaha dhirta badan roob ka daa saad ogtihiin marka abaaraha wax soo celiyana waa roob la'aanta weey wadayna inagu si cilmiyeysan bal intaan muxuu ahaa u fadhiisano sanad walba wixii aan gaari karnay qoranno ee ninaan beerayna inaan gaadhno isla markaana ilaalinteedii aan qaadana loo baahan yahay hadda ka hor macaadiyada iyo GPS meelaha maaragtay in la daba galo oo ay fududaato bal wixii la beeray imisa baxda imisa bixinta dadaalo laga sameeyay baa jira inaan kuwa sii xoojino oo xafiiskuna uu horumar ka noqdo ayaa loo baahan yahay barnaamijkan cagaarinta dalka Itoobiya faa'iidooyin badan buu ka helay sadoo tihiin ilaa iyo 50 bilyan oo geed ayaa barnaamijkan lagu beeray taasoo keentay in ka 2027ka tirsiga Europeanka barnaamijka COP loo yaqaan ama climate-ka adduunka shirkooda ugu ballaarna oo ka dhici doona Addis Ababa kaasoo diyaar garow badan la sameeyo marka iyaga waxa la rabaa inaga deegaan ahaan in initiative-ka sidiisaan uga faa'iideysano sidaa daraadeed hogaaminta iyo shacabkuba ha iska xilsaaraan in barnaamijkani uu noqdo barnaamij taabagala maadaama uu saameyn ku leeyahay nolosheenna iyo jiilka soo socda iyo bilicda deegaankeena intaba barnaamijyada xisbiga barwaaqo uu qaatay kii shalay aan gacanta ku haynay ahaa guryaha masaakiinta loo dhisayana uu ku jiro runtii waa barnaamijyo haddii sida yihiin looga shaqeeyo faa'iidooyin badan bulshada u imanaya wey hadda waad ogtihiin magaalooyinka markay weynaadaan ee ballaadhaan xaafadaha isku raran taliyaabaa bata ee dadka masaakiinta ku nool yihiin haddii inagu aan qorshe u qaadano in dadka hadda magaalada dhexdeeda guryahan muxuu ahaa baska layidhaha iyo buushashka iyo ku nool in muxuu ahaa ganacsatada iyo dawladda iyo inta la iskaashado aynu 100-200 oo guri aynu dhisno sanad walba oo dadka masaakiinta laga saaro qorshe iyo master plan loo sameeyo loo geliyo biyo loo geliyo waxaa ku guuleysanaynaa inaan si cilmiyeysan uga hortagno markay magaaladu caasimad noqoto inayna soo bixin sida haddaba muuqatay xaafado wanaagsan oo qurux badan iyo meelo iyaguna magaaladii ka duwan oo dad masaakiin ay ku rafaadsan yihiin marka dawladdu inay arrimaha qaadatay way go'aansatay wixii loo baahan yahay tabaruc iyo hawlaheedna qorshayaasheeda waan geli doonaa